dhalinyarada maanta jirta sii gaadisha waa eber qaylooyinkana soo gaaro ugu badan waxa kamid ah xalino sheekhu ninkan gacanta waa ku fiican yahay af fiican buu leeyahay صوت قروح بدنو ليه لكن شيء غوشي وقنع الله جوركا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حليه هاي مرنا واجب ونغدا علي النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني نكاح وسنه وهدي ودغنكي فمن لم يعمل بسنتي روح أنكو عمل فلن أنيق السنة إذا يا أنقورسن isagoo shahwadii iyo dareemkii iyo damci iyo jacaylkii ay ku jiraan aniga mid ma nabiga sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu amray inaan guursano culimadayna Allahu naxariistay guurku marna waajib uu noqdaa marka nin adiga camal ah dhalinyaraha oo haysto caafimaad qabo habluhu markay arkaan amba ay agmaraan isha la raacayo hadana guurkii ka raagay shariicadu ma ogola marka guurku wuxuu keenaa doorsanaan buu leeyahay inaad doorsanaato فضلي أهان وح فضلي بدن قبله الكورس وأنك وحي سرقاليستي وأنك وحي سرقاليستي لأن يرد ما أنت جرت سي قادش وإبر خيلوين كان سوقار وغبضا وحكم إذا وحالينه شيخو إن كان قعنت وكفي عين هاي أف عن بولي هاي صوت قروح بدن ولي هاي لكن شيخو غوشي وقنع الله وأنا قصوبتات وحاكينيا هذا صحافة كشقيان إيه هذا عيال صلاحيين إيه عيال سبورتس هذيهين أنت مالين يهبين سيجي كجران سيجي ده نوان كهذلنا موضوع حل مالنا ربعنا كل جد كهذله ووالدين الصوماليات جارهان هو يوينك صوماليات وحيج عليهن ويلشودو إن عبيانا هو يا الله نحرست هو يوينك الصوماليات كله سلامية وحن ليه ويلشه عيب ما هني ويلشه على الله هذله gaar ahaan aabuhu markuu wiilkiisa weynaad asaga ku haboone aabbu waxa dhaqaalaysa yiraahdo siigadu koow xibinta taranka ka thawbi wajil ciisa maro kale naqanaya waa koow matarmay uu yaraanaya marka saddexaad waxa ka imaanayo ogxaantaada inay dhamaato afaraad waxa ka imaanayo biyo degdega inay kugu dhacaan gabadhii aad gogasho ku qanci weyso ma dhaliisna waa naqanaysa marka ugu yaraan 5 cudur ama 6 cudur ba ka dhalatay siigada 6 cudur markaan soo koobno 6 cudur ba ka dhalatay culimadayna qeyr Allah siiyana bartay marka waxaan ku talinayaa nin kasta oo rabo quruxda haweenka Soomaaliyeed inuu ka dhargo inuu ka faa'iideysto haweenkeena Allah noo dhaafay waa ku farxaynaa siigada ka fogaad dhalinyaradana halga waan iyo Soomaali wixii ceeb ah ay maanta waxay ka dhigteen wax fiican wixii la rabay in lagu faanaan ceebay ka dhigteen zinadu waa ceeb maanta dad badan oo naga mid ah zinaysta in la isqaabiyo waa ceeb in gaalada la isku ekaysiyo waa ceeb iyo ay cadaab marka waxa loo baahan yahay ragga dhalinyarta xibinta taranka iyo gacantaada kala fogay dantaada ku jirto maanta hadaad imaqlayso oo maqdacan ku gaari doono go'aan ka qaad jooji maxay bedelayaa ha guursadaano ninkan guursa karin wixiisa ha haysto soomka ha badsado isniinta ha soomo qamiista ha soomo indhaha ha laabo 13aadka 14aadka 15aadka maalmuhu dayuxu buuxo iska soomo anigu intaan xirta lahayn waa soomi jirnay waliga igama tigi 13 14 anagoo afur haysan oo baraagta biyaha masaajidka weysaqaadka xilligan wax baranayna darba kombooyina lagu weysa qaada jiray masaajida mar walba meel ay joogaan soo jeedid biyaha iska cabi jirnay anagu xataa afur awoodin oo haysan marka ninku wixiisa dhaqaaleysto si marka aad laba xaas iyo saddex xaas inta u guursato xuquuqdoodii xagga gogosha inaad tarmato waxa soo dhan waxay ku xiran tahay hawshaas inaad joojiso